وقيب كمدا سببها لوga adkaan leeyahay dhaqdhaqaaq hubeysan ee al-shabaab kadib markii ay soo baxday xog sheegaysa ciidamo tababarkooda uu dhamaaday muddo bilo ka hor ah in ay weli ku xayireen yihiin dalka Turkiga iyadoo oo fariimaha dagaalka looga baahan yahay ama fariismada ciidamada dawladdu looga baahan yahay ciidamo kale oo xoojiyo isla markaana bedela kuwa muddo badan ku maqnaa jira hore ee dagaalka dalka Turkiga sida loo gahay waxa uu tababaraa askar Soomaaliyeed oo aad u badan kuwa oo isugu jira qaybaha kala duwan ee militariga ka kooban yahay waxaa jira cutubyo ka tirsan gorgor oo dhameystay tababarkooda isla markaana sabab la xiriirta in Eritrea oo dagaal ka socdo hawadooda in la soo mariyo ay diiday darteed ay ugu xaniban yihiin gudaha wadankaasi iyadoo oo toddobaadyo dhowr ah aysan qaadan wax tababara isla markaana ay u soo ilaadeen wax walba oo la barayo oo la xiriiray tactical dagaal iyo tababaradii halkaas ugu socday guutooyinkan waxa xanibay sida la sheegay Eritrea waxayna hadda dhibano u yihiin qaranka Eritrea kadib markii la diiday in ay adeegsadaan hawadaas ama la soo marsiyo si Soomaaliya ay u soo gaaraan saraakiil codsaday in magacyadooda la qariyo oo ku sugan halkaas ayaa warbaahinta u waramay waxayna sheegeen in xaaladda hadda ay ku sugan yihiin ay tahay niyad jab iyo quus waxaan ku joognaa ururka 13aad buuxbuuxis ee ka tirsan guutooyinka 18aad iyo 17aad ee gorgor iyo guutada koowaad iyo labaad iyo 19aad ee gorgor oo ah kuwa cusub ayuu yiri sarkaalkan oo noo waramay duulimaadka iyo bixitaanka ciidanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay keentay in uu dib u baaqday oo sabab la xiriira dagaalka ka socda dalka Eritrea taas oo hawadeeda ka mamnuucday sida la sheegay ciidamada waxaan joognaa Turkiga waxaana lagu haystay niyad jab iyo quus baan sidoo kale waxaa jira ciidan kale oo tababar loogu qaaday tarka Turkiga isla bixitaankeenana ay ku xiran tahay muddo ka badan 3 isbuuc ayaana wax tababar ah jirin haddana loo sheegaya mar walba in aan baxayno waxaan dhameysanay wax walba oo la xiriiray 3 bilood ee tababarka uu noo socday fiiro gaar ah ha isticmaalin magacaygu iyo darajadayda ciidan ayuu sarkaalkan naga codsaday si kastaba ha ahaatee cabashada saraakiishan ciidanka ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan gorgor waxay ku soo beegmaysaa iyadoo oo muddooyinkii ugu dambeeyay dalalka Turkiga Eritrea iyo wadamo kale oo ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta ay Soomaaliya u tababarayeen ciidamo xoog leh isla markaana leh tababar sare wadana hub iyo gaadiid dagaal hadda waxa la isweydiinayaa waxa Eritrea ay uga mamnuucayso in ciidamadaasi hawadeeda ay soo maraan Soomaaliya ay yimaadaan sidaasna ay qayb kaga noqdaan dagaalka ku darsa xisaabta waxaa jira ciidamo kale oo Soomaaliya oo la geyn lahaa dalka Turkiga waxay isku xiran tahay in kuwan la soo qaado kadibna lagu bedelo xiriyaha lagu tababarayo kuwa kale oo Soomaaliya oo lisigooda hadda kol hore dawladda Soomaaliya ay buuxisay hakadka iyo xagladaaca ku yimid dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxa sabab u ah arrimahan oo kale waxaana la sheegayaa in dadaal xumo wasaaradda difaaca Soomaaliya ay sameynayso ay tahay cabashada saraakiishan iyo askarta ka tirsan ciidamada dawladdu waxay ku soo beegmaysaa iyadoo oo furimaha dagaalka maalmihii ugu dambeeyay laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ciidan madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu sheegay in al-shabaab laga saari doono guud ahaanba Soomaaliya dhawaanna waraysi uu bixiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala wuxuu ku sheegay in ay jiraan danley iyo dad macaash siyaasadeed ka dhex raadinaya dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada isku soo wada duubo dawladda Soomaaliya hadda waxay wajahaysaa caqabado dhowr ah oo dagaalkan uu ka mid yahay canshuuro ay soo rogtay dawladda oo lagu horyimay ansixintii qaar ka mid ah cutubyada dastuurka iyo sidoo kale shaqaaqooyin kale oo siyaasadeed oo dhinacyo kala duwan kaga imaanaya xilli gabaabsi uu ku sii dhow yahay xilhaynta madaxweynaha iyo sidoo kale xukuumaddiisa iyo dhammaan golaha ay ka gooban tahay dawladda